ugu horeyn assalaamu calaykum. salaanka bacdi daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan alaaba barnaamijyada nooga barateen suldaan shige janaal. waxaa maanta barnaamijka marti inoogu ah laba xubnood oo aada iyo aada muhiim u ah. xubin waa mucaarad, xubinna waa muxaafid. qodobka dooda aan ka hadli doono ama miiska noo saaran waxa uu yahay xubinta mucaaradka maxay ku mucaaraday, maxayse ku dhaliileysaa dowladda federaalka soomaaliya uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo. xubinta kale oo maxaafidka ah oo garabkayga bidix fadhida, iyadana waxaan weydiin doonaa waxa ay ku taageersan tahay ama waxqabadka ay ku taageersan tahay dowladda federaalka soomaaliya. waxaan marka koobaad kusoo dhaweynayaa, inta aanan soo dhaweynta martida u gudagelin, waxaan daawadayaasha ka codsanayaa inay janaalka noo subscribe gareeyaan, noo sii share gareeyaan, wixii commentina halka hoose inoogu reebaan. daawadayaal waa mahadsantihiin sida wacan aad barnaamijka ugu taxan tihiin. waxaan soo dhaweynayaa xubinta garabkayga midig fadhida, waa siyaasi soomaaliyeed. soo dhawow adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo sidaad barnaamijka u aragtid. waan ku dhowahay, magacaygu waa siyaasi qalafsane. waxaan aada iyo aada kugu mahad celinayaa sida wacan aad barnaamijka inoogu daadihinaysid iyo sida aad inoogu cawsantay janalka suldaan shige janaal. waadna mahadsan tahay. waa mahadsan tahay. marka xigta waxaan soo dhaweynayaa xubinta labaad oo garabkayga bidix fadhida, waa nabadoon soomaaliyeed oo muxaafid ah. nabadoone kusoo dhawow barnaamijkan adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo qodobka dooda sidaad u aragtid. waa mahadsan tahay. sida qurxoon aada barnaamijka igu casuuntay anigoo ah nabadoon suldaan. runtii qodobka dooda waa qodob aada iyo aada muhiim oo ah. fikirkayga saliimkana waxaan jeclahay inaan ka dhibto. mar labaad iyo mar saddexaad siyaasi qalabsane kusoo dhawow barnaamijkeena. su-aasha koowaad aan ku weydiinayo waxa ay tahay, maadaama aad tahay mucaarad kasoo horjeeda dowladda federaalka soomaaliya, waxa aad ku dhaliileysid maxaa ka mid a? maxaad dowladda soomaaliya ku dhaliileysaa waxqabadkeeda ama dhaliishaada koowaad aad qabtid? in badan baa meediyaha ka hadashay, baraha bulshada waxyaaba fara badan kusoo qortay. bal maxaa ka mid a dhaliilaha aad tabanaysid ee dowladda intaas ku mucaaradaysa? bal wax nooga sheeg. waxyaabaha aan dowladda ku mucaaradsannahay waxaa ka mid a, dowladda marka koowaad waxay garan weysay shaqadii ama howlihii loo idmaday. marka koowaad waxay jebisay dastuurkii, oo waa iyada siyaasiyiin ama dad miisaan dalka ku leh oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed, uu ka mid yahay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud, ay u diiday inay u safraan magaalada kismaayo. mar labaad haddana waxay u diiday waxay u diiday inay u safraan magaalada beledweyne. ay rabeen in ay gargaar bila-aadannimo ay gaarsiiyaan. runtii dowladdu waxay marka koowaad garan la-dahay howlihii loo idmaday. dowladdu waxay ballan qaaday 6 qodob. 6dii qodob waxa ay ilaa hadda ay hirgelisa ama ay qabatay ma jiraan. waxa ay ku tagrifaleysaa awooddii dowladnimo. iyadoo waxay ku timid sifo dastuuriya oo sharciya. sifo dastuuriya oo sharciya maadaama ay ku timid, waxaa waajib ku ah in ay dhowrto sifada ay ku timid. ma ahan inay dastuurka jebiso, ma ahan awoodda inay ku tagrifasho. sidaa darteed dowladdu waktigeedu waa gabaabsi. ilaa hadda lama oga doorashada soo socota qaabka ay noqon lahayd. iyaguna maalin walba waxay ku andacoodaan, ay yidhaahdaan waxaanu qabanaynaa doorasho qof iyo coda. see ku dhici kartaa inay qabato doorasho qof iyo coda? waxaa muhiim ah in la helo doorashada qaabka ay tahay, laga wada hadlo, maamul goboleedyada dalka laga talageliyo. dowladdu khaladkii ugu weynaa ay gasho waxaa ka mid a inay maamulka koonfur galbeed ay u adeegsato inay baawar awood ay kusoo saarto madaxweynaha hadda dalka meesha ka arrimiya cabdicasiis lafta gareen.
waa ogtihiin inta qofoodoo meesha ku dhimatay, lacag kharash fara badan baa ku baxay. waa ogtihiin hadda xaaladda Kismaayo ka taagan, cunaqabateyn ka saaran. waxaa kaloo ogtihiin xaaladda hadda Galmudug ka socota, inay dowladdu rabto masiirka ama shacabka ummadda meesha ku nool inay u adeegsato power. sidaa darteed dowladdu waxyaabahan ku mucaaradayo waa ay fara badan yihiin. haddii aan nahay siyaasiyiin mucaarada, waxaan ku mucaaradaynaa dowladdu waa wax cad, ma ahan waxaan hadda anagu iska mala awaala. dowladdu baawarkeeda waxaa la rabaa inaysan u adeegsan siyaasiyiinta. waxaa la rabaa inay dastuurka iyo qawaaniicda dalka u yaalla ay ilaaliso. sidaa darteed dowladdu anaga waa dhaliileynaa, waan ka soo horjeesanaynaa ilaa ay kala imaaneyso sifa cad ama aan ku qanci karno. waadna mahadsan tahay. waxaan dirayaa baaqan waxaan u dirayaa bulshada Soomaaliyeed. waxaan kaloo baaqayga aan ka marnaan doonin inaan gaarsiiyo dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqayaa haddii uu dhammaado muddo xiliyeedkeed loo idmaday inaysan wax waqtiga ku darsan. waxaan kaloo ugu baaqayaa inay caddeyso nooca doorashada 2021 ay qaban doonto, nooca uu yahay. waxaan kaloo kula talinayaa inay waan ama wada hadal ay u furto dhammaan maamul goboleedyada dalka ka jira: Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug. waxaan la soconnaa ama ognahay in ay jirto khilaafaad u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. baaqa aan shacabka u dirayo waxa uu yahay inay la socdaan doorashada, inay ka qayb qaataan nabadda iyo xasiloonida dalka. anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca afka siyaasiyiinta Soomaaliyeed. waa mahadsantiin. nabadoon Suldaan, mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhow barnaamijka. haddii aan su-aashayda si toos u guda galo, waxa ay tahay, maadaama aad tahay nabadoon Soomaaliyeed oo matalaya dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed, sidaa darteed maadaama aad tahay muxaafid, waxyaabaha aad ku taageeraysid dowladda federaalka Soomaaliya, waxqabadkeeda hadday noqon lahayd iyo siyaasaddaba, maxaa ka mid a adoo dhiibanaya fikirkaaga saliimka ah? haddii aan qodobka dooda u guda galo, runtii suldaan ahaanteeda ama nabadoonnimadeyda, waxyaabaha aan dowladda ku ammaanayo ama aan ku taageersanahay waxaa ka mid a dowladda number 1 inay dhistay ciidan qaran. ciidankaas inay u sameystay system ay mushaharkooda ay ku qaataan bil walba marka ay dhammaato, iyadoo aan ogeyn dowladihii hore inay lacagta ciidamada 6 bilood oo kale aan la siin jirin, inay lacagta ciidamada qaybtood heli jiray, qayb ka midana aysan heli jirin. laakiin hadda askari walba waxa uu ku jiraa system ama diiwaangelin loo sameeyey si sax ah. wuxuu ku qaadanaya mushaharkiisa faro iyo sawir. ciidan askari walbana waxa uu leeyahay code ama diiwaangelin sax ah. sidaas darteed waa qodobka koobaad aan ku taageerayo dowladdan. qodobka labaad aan ku taageerayo waxa ay tahay xiriirka caalamiga ama xiriirka diblomaasiyanimo inay wanaajisay. qodobka saddexaad oo aan horeyna usoo arkin inta ay burburtay dowladdii Siyaad Barre, oo aan ku ammaanayo dowladdan waxa ay tahay, hadda Muqdisho waxaa laga hirgeliyey 20 iskool oo si bilaash ah. waxyaabaha ay dowladihii hore aysan soo sameyn oo ay ka mid tahay, waxaa ka mid a in ardayda Soomaaliyeed si lacag la-aana wax lagu baro Muqdisho ama dalka gudihiisa. ayadoo waa qodobka saddexaad aan ku ammaanayo. qodobka afaraad aan ku ammaanayo dowladdan waxa ay tahay, ay wax ka qabatay inay hirgelisay ama ay saxiixday nidaamka musuqmaasuqa. waxaa gacantiisa ku saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyana waan ku ammaanayaa. waxyaabaha kale aan dowladda dhexe aan ku ammaanayo way fara badan yihiin, ma aha wax la soo koobi karo. walow ay jiraan mucaarad fara badan
dowladda dhexe kasoo horjeeda waxqabadkeeda ama horumarkeeda ama tilaabada ay qaadayso. waxaan kaloo ku ammaanayaa inay wasaaradda waxbarashada ay adkeysay xiriirka ama waxbarashada loo dhan yahay iskoolada. iskool walba oo ka mida iskoolada dalka Soomaaliya ku yaala waxaa waajib ku ah inuu hoos yimaado wasaaradda waxbarashada uuna qayb ka noqdo imtixaanka ay qaadayso wasaaradda waxbarashada. iyana taasi gooni waxaan ugu ammaanayaa wasaaradda waxbarashada. waxaan kaloo dowladdani ku ammaanayaa inay miisaaniyaddii dalka kordhisay. waxaan kaloo ku ammaanayaa in ay ku guuleysatay cafinta deymo fara badan oona lagu lahaa. mashaariicda ama horumarka ka socda dalka gudihiisa ma ahan wax lasoo koobi karo, hase yeeshee ma ahan wax laga dhaadhicin karo mucaaradka faraha badan ee ku geedaaman dowladdan hadda jirta. waxaan hadalladiisa ka dhadhansanayay siyaasi qalafsane inuu yiri dowladdani waxba ma qaban. waxaa jirta dowlad waliba inay meel soo gaarsiisay. runtii dowladdani habka ama nidaamka ay ku socoto ma aha nidaam ay dowladihii hore ay soo sameeyeen. runtii dowladdani aad waxaan ugu ammaanayaa ama ku taageersanahay powerka ay isticmaalayso. dowladd waxaa lagu yaqaanaa ama system dowladnimeed in dowladdu amarkeeda uu socon karo. aad baa ayadana ugu ammaanaya go-aan walba ay qaadato, ha khaldanaado ama ha saxsanaado, laakiin dowladda waxaa lagu yaqaanaa in ay go-aan qaadan karto, ha noqdo mid saxan ama mid khaldan. iyana waa ku ammaanaya. runtii intaas markaan kasoo gudbo waxyaabaha aan ku ammaanayo, waxaan baaq u dirayaa oo cod dheer ama cod gaaban kula hadlaya anigoo ah nabadoon ama suldaan matala suldaamada ama oday dhaqameedyada dalka. shacabka inay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida. shacabka inay si dhow ama si hoose ula shaqeeyaan dowladda dhexe. dowladda waxa ay ku dhisan tahay ama ay ku horumartaa waa shacabkeeda inay la shaqeeyaan. dowladdu waxba ma qaban karto haddii aysan helin shacab daacad u ah ama la shaqeeya. waxaan inta badan arkaa kooxo mucaarada oo haddana haysta taageero. taageerahaas waxay u wada badan yihiin xisbiyo ama taageernimo qabiilnimo. runtii shacabka waxaan kala dardaarmaya, waxaan ku jirnaa qarniga 21aad. waa ka gudubnay inaynu hadda shaksi iyo qabiil aan qofka u fiirino. waxaa naga badan soomaalinimada, waxaa naga badan wadaninimada, waxaa naga badan inaynu horumar si wada jira ku gaarno. sidaa darteed shacabka Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya codka nabadoonnada waxaan ka codsanayaa in laga wada shaqeeyo nabadda iyo xasiloonida iyo horumarka wadaninimada. waana ku mahadsan tahay sida wacan aad barnaamijka iigu soo dhaweysay iyo sida qurxoon aad janalka Suldaan Shige noogu soo dhaweysay ama qodobka xiisaha badan aad noo soo dhex dhigtay. waxaan isla soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena. barnaamijkeena wuxuu u dhexeeyey laba xubnood oo kala ah mucaarad iyo muxaafid. waxaan marka koobaad u mahad celinayaa xubinta garabkayga midig fadhida siyaasi qalafsane sida wacan uu waqtigiisa inoogu soo huray ama ugu soo huray janaalkeena Suldaan Shige. waxaan mar labaad u mahad celinayaa xubinta labaad oo garabkayga bidix fadhida nabadoon Suldaan. halkaad barnaamijka kala socotaan waa Suldaan Shige janaal. waxaa barnaamijka idiin daadihinaya anigoo ah Barkhad Maxamed Cumar Shige. dhegeystayaal iyo daawadayaal, sida wacan aad barnaamijkeena ama muuqaaladeena aad ugu taxantiin oo ku mahadsantiin. barnaamijyadeena waxay ahaan doonaan kuwa taxane ah. waxaan idinka codsanaynaa marka koobaad inaad subscribe-ta inoo dhahdaan janaalkeena, gambaleelkana furataan, wixii commentina halka hoose inoogu reebtaan si aan u ogaano fikirkiina saliimka ah. waxaan isla soo gaarnay xidhitaankii barnaamijkeena. daawadayaal iyo dhegeystayaal waa mahadsantihiin. kulankeena xiga waxaan idinkaga tegaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.